الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan rabnaa hal xadiid oo nolosha qofka mu'minka ah saameyn badan ku leh aakhiradiisa iyo adduunkiisaba inaynu walaalayaal isu tilmaano haddii la yidhaahdo isu sheegno. nabigeena calayhi salaatu wassalaam waxa uu leeyahay man kaanat alaakhiratu hamah jacala allahu ghinaahu fii qalbih wa jamaca lahu shamlah wa aatatu dunya wahiya raagimah. wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wassalaam qofkii aakharo ay noqoto shayga uu ka walwalo, shayga uu ka fikiro, ilaahay casa wajalla wuxuu siiyaa oo uu ku irsaaqaa 3 arrimood. qodobka koowaadi waxa weeye qofka qalbigiisa ilaahay wuxuu dhigaa hodantinimo iyo qaninimo, oo macnaheedu yahay qanaaca ilaahay qalbigiisa geliya. qofku hadduu aakhare ka walwalo, hadduu aakhiradiisa ka fikiro, ilaahay qalbigiisa qanaacuu geliyaa, sababtoo adduunyadu walwalba kuma hayso. wuxuu aaminsan yahay wixii ilaahay u qoray inuuna waayeynin, waxaan loo qorinna uuna helin. masalada labaad, wa jamaca lahu shamlah, arrimihiisa iyo danihiisana ilaahay baa u hagaajiya oo u ururiya. masalada saddexaadna wa aatatu dunya wahiya raagimah, adduunyaduna way u timaadaa wixii ilaahay u qoray iyada oo qasban, sandullay ugu timaadaa. wixii adduunyada looga qoray ma waayayo, arrimihiisana ilaahay baa u ururiya, qalbigiisana ilaahay baa qanaaco geliya. oo qofku markuu aakharo ka fikiro ee uu ka walwalo. saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay aada iyo aada uga walwali jireen aakhiradooda, markaasuu ilaahay ka kaafiyey adduunyadoodii. aakhiradoodii bay xoogga saareen, adduunyadoodiina ilaahay baa u ururiyey. wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wassalaam waman kaanat iddunyaa hamah, qofka walwalkiisu uu ku soo ururo adduunyo keli ah, adduunyo u sameeya wax walba oo ka xaaraan ah, adduunyo aada heshid wax u khayaana, adduunyo aada heshid wax u xada, adduunyo aada heshid been u sheega, adduunyo aada heshid dad u dila. qofka walwalkiisa iyo fikirkiisu adduunyo keliya aada heshid ay ku soo ururto, wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wassalaam jacala allahu faqrahu bayna caynay, ilaahay indhihiisa wuxuu tusaa oo labadiisa indhood dhexdooda dhigaa faqri, yacni faqrigii baa la tusaa. qalbigiisa qanaaca ma gelayso. wa faraqa calayhi shamlah, arrimihiisana ilaahay baa kala geeya, ilaahay dantiisa iyo maslaxadiisa ma tuso. walam yaatihi min addunya ilaa maa qudir, adduunyana lagama siiyo wixii ilaahay u qadaray mooye wax kale. sababta walaalayaal waxaan ognahay adduunyada qofku wuxuu ka helayaa wixii ilaahay u qoray. qofka helayaana waa qofkii ilaahay u qoray. man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa liman nuriid. ilaahay wuxuu leeyahay adduunyada degdegaysa qofkii doonaya waan u soo dedejinaynaa. u fiirsa, ilaahay wuxuu daba dhigay qofkaan doonaan adduunyada siinaynaa, waan u dedejinaynaa, intaan doonnana waan ka siinaynaa. ma aha qofkii isagu doonaya, mana aha intuu ka doonaya, ee waa qofkii ilaahay la doono iyo intuu ilaahay u garto tabaaraka wa tacaala. taasaa la rabaa qofka mu'minka qalbigiisa inay gasho. ilaahayna waxaan ka baryaynaa adduunyada inuuna ka dhigin akbara hamina walaa mablaqa cilmina, waanatuu nabigu ku dacsan jiray calayhi salaam, hamigeenna ka ugu badan inuuna ilaahay adduunyo ka dhigin, cilmigeennu meeshuu ku dhammaadana adduunyo keliya ka dhigin. maslaxadeenna iyo aakhare iyo mideenna adduunyaba ilaahay haynoo toosiyo oo haynoo xalliyo, wixii sharana allah inaga xijaabo. wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin.